بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha Abriil 2020 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Dani oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa ay qaab maqal iyo muuqaal ay shir kula qaateen xubnaha beesha caalamka ee taageera arrimaha Soomaaliya iyadoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ku sugnaayeen xarunta qasriga madaxtooyada ee Puntland ee Garowe mudanayaasha kale ee ka socday beesha caalamka qof kasta uu xafiiskiisa u joogay ayaa si toos ah maqal iyo muuqaal ay kulankan u dhacay oo shirka u dhacay kulanka waxa dhinaca beesha caalamka xubnaha ka socday hogaaminayay danjiraha Soomaaliya qaramada midowga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Wan sidoo kale waxa qayb ka ahaa ergeyga midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya ambassador Nicholas waxa sidoo kale qayb ka ahaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya danjirayaal wadamada midowga Yurub kamid sida Sweden Germany ayana ka socday waxa sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday World Bank ujeedka iyo kulanku intii uu socday waxyaabaha laga hadlay waxa ugu muhiimsanaa oo aad looga hadlay xaaladda cudurka coronavirus oo adduunka halis ku haya si xawlina ugu fidaya iyo waliba Puntland sida ay ugu diyaar garowday wacyigelinta iyo ka hortagga heerka uu marayo saamaynta dhaqaale ee uu xanuunkaasi yeelan karo iyo waliba doorka looga baahan yahay beesha caalamka madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu la wadaagay beesha caalamka sida ay dawladdu ugu diyaar garowday iyo tallaabooyinkii ay goor horeba qaaday iyo sida ay u socoto wacyigelintu iyo waliba saamaynta dhaqaale ee uu yeelan karo iyo warbixintii ay Puntland dhawaan ay ka diyaarisay xanuunkaasi iyo saamaynta uu ku yeelan karo guud ahaanba Puntland beesha caalamka xubnaha ka socday si weyn ay Puntland ugu bogaadiyeen in Puntland goor horeba ay bilowday diyaar garowga iyo wacyigelinta ka hortagga COVID-19 iyo waliba awaamirta dawliga ah ee hirgalay iyo dadku sida ay go'aamada ay dawliga u qaateen iyo wacyigelintu sida ay aad uga socoto warbaahinta arrintaasina aad ayay u bogaadiyeen shirkuna waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda Puntland sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka wasiirka qorsheynta iyo waliba saraakiil madaxtooyo waxaana uu ku soo dhamaaday guul